xildhibaanada guddida joogtada ee aqalka wakiilada Soomaaliland ayaa saaka kulan albaabada u xidhnaa kula qaatay xarunta aqalka baarlamaanka xubno kamid ah mas'uuliyiinta banka dhexe ee Soomaaliland kuwaasoo warbixin kaga dhageysanayay marxaladda sicir barar ee xilligan ka jirta gudaha dalka. kulankan oo warfidyenadu ka ahayn dibadjoog ayaa markii uu soo idlaaday wax warfidyenka sharaxaad ka siiyay xildhibaan Axmed Ducaale oo kamid ah mudanayaasha guddida joogtada aqalka wakiilada iyo sidoo kale gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland Maxamed Cabdi Ibrahim Doobale. waddanka marba taagan currency-ga marka taagan baan madaxda khusayso u yeedhnaa halkan xog waraysiga kula yeelanaa iyo doodo maanta waxaan u yeedhnay banki ayaan u yeedhnay maanta waxaan u yeedhnay central bank ama banki dhexe ayaan u yeedhnay madaxdiisii oo gudoomiyaha horkacayo ayaan iyaga u yeedhnay kulli xaaladaha banka iyo waa ka waraysanay iyo arrinta in dhaweyto dee arrimaha taagan kamid ah xagga sixir bararka ay xog hayeen waa naga siiyeen runtii wixii xildhibaanadu dood ama su'aalo la galiyeen waa weydiiyeen si fiican bay uga warrameen sida xaaladdu tayarka xaaladdu taagtay xaaladaha u baahan tahay horta waa saa gudoomiye idin sheegay kulankaanu guddiga joogtada ee baarlamaanka aanu ugu nimi dalab ay noogu yeedheen waxay noogu yeedheen dee xog waraysiga si in xogta dalka la iska waraysto qabla xaaladda halkay marayso annaguna waanu u warranay bangi ahaan halka xaalad marayso iyo sida yihiin wixii su'aalahaana waan uga jawaabnay hadalladayda kulay intaas bay ku koobnaayeen ay ku wareegayeen insha Allah saas maana isku soo afkarano waqtiga waa la sheegay dadku ay sheegayeen oo laga dhawaajinayay mana wada marayo 8500 ma wada maraya waa meelaha qaarkood meelahaasna runtii ciidankii ku shaqo lahaa waan u diro iyadana in wax laga qabto waa muhiim waan lagu guda jiray inta waa lagu dhex soconaa insha Allah laakiin sabal hoos buu sii socdaa marka hoos ayuu sii socdaa muhiimadiisa koowaad iyo lacagtiisa koowaad wax la kala sanaya meel hoos u sii maraya ilaa inta todobada gaar inuu wadana insha Allah laakiin qofku markuu sarifanayo 7,000 bay ugu sarifayaan 7,000 waa suuq madow dollar iga iibi ma hayu ku oranay waad sheegtay waana ku ka su'aasheedu waxay tahay dhawaan golaha wasiiradii madaxtooyada iyo adigu iyo gudoomiyahan waxaasta qaateen in adeeg saada joojiyo wixii $100 ka haatan way shaqaysaa 8 saacadood oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.